بسم الله الرحمن الرحيم. زين والسلام يا هذه إذاعة مركز كلية شركة إلى سيده موضوع يسيده كل الوضيع شركة رأيتها المدة سيده هي كل الوضيع مركز وراء الشركة الصومالية قصين كتير ملاحظ وضعيه مع الجبلادية ده أقول أي الغبن شري لكن كان يبدو كدوية هي ولا سوية يعني مركز صدق شر مدحوينه وقبطي عدي ما دل عدة ما دل واي كان أبدأ في زيري بالغوب باغية باش عالم في وضو ما أنت نعد مركز يقول رئيسي تصور فريستان بيهاي مركز إلا هذا نوعا السعودة هنا يسين جرين هذا واحد جنده اللي جه الشيء وشركة كده أفرم لها وآيس بريكين ويانا شركة رجعوا مركز إلا هذا أجنديه اللي قمت الشيء مركز أجنديه اللي قمت الشيء كبعد أيام لديه كرا شركة مركز أوفر فرمو أيام الله رنك كرا شركة باب اللود لكن إلا هذا واحد اللي سلدها في لها هاي رينجا اللي سلدها في لها كواد بعض صانع ملايني. وهي مركب شركة وحا قدومينية أما مدحوينة كاها ماشو شر قدونا كاها مدحوينها الصومالية محا عبد الله واجوغين بنتلان iyo Jubbaland iyo maamuladii kale iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka maxaa u soo kordhay baa isleedahay Puntland iyo Jubbaland oo ay hadda ku ogolaadeen inuu shir gudoomiye madaxweyne Farmaajo horena ay ugu diidanayeen waxay ila tahay aniga madii international community ay soo dhex galeen waxa moodaa iyaga laftooda in wax looga bedelanayo oo la yiri barorta aqbala inuu shir gudoon noqdo asaga laftiisa kulli waxba laga fujin doonaa inuu macnaha sidaan dareemayo inuu qoro warqad maaragtay markaas waxa weyn xilka uu ku wareejinayo xukuumadda oo caretaker ay noqonayso asaga madaxweynaha uu dhamaaday qodobkaas waxaad moodaa in looga bedelo doono sida ilaahay tahay aniga laakiin si kale hadda ay ku ogolaadeen oo iyadoo aan gurgura jirin ama waxa soo qarsoon lagu leeyahay jirin ma malaynayo marka maanta waxay ahayd isu qalbi fur ama laab xaarasho inta bashooyinkii ay gudahooda qabeen la xalliyo biri ayuu shirka muhiimadiisu bilaaban doonaa dooda ajendaha soo socda ma isleedahay shirka uu ka badaniyaa kubii hore waxa ka soo bixi karta isfaham iyo natiijo wanaagsan زين وهذا كور وحنا ملاينا مرنا عرضنا كهالله وأنا شركاني ونقول دونا شرمار في أي وقت صباحان أو international community أي حاجة صار يعني إن دورش أي بعضه وضن كان واحد الرضاع وضن كان لما أقوله إن أي كوح مركزي أي قعنت أوجش ووضع عمام محل يعني دورش أيضا مركزي أيضا سيرتي وصنا يستطيع أي كان بعضه وعلى الغرب دورش الوضع قناعسية هاي وسامرية السياسة ده iyo هذا هذا بالصوت سوالف أنت من كذا مركا وأول شركة أنا وحنقنايا يلم وغالك هذا شركة مبجات اللي وقفتي محل هذا اللي دولتي عبد القاسم يقدم كعادية يسوقيني ينكسر اللي وقفتي تلك الدبديسة أدراها مودعين ونقشدان كاوي هاي وأنا ذكر تعديلك اللي هو الشيء وين ملك الإسلام أنا وذكر marka waxa ay miisanahay inay wax ka soo baxayaan international community ay xoog saarayaan marka waxay isku raacsan yihiin beesha caalamku in meeshan shir lagu qabto doorasho ay dhacdo inkastoo xoogaa ay ku kala duwan yihiin tilaabooyinka la qaadayo xoogaa ay ku kala gedisan yihiin way marka way adag tahay baa la aaminsan yahay inuu tanaasul yimaado ma qiyaasi karo pressure-ka ama culayska saaran waxa uu ka bedeli karo ma isleedahay madaxweyne Farmaajo ogolaan karo inuu warqad qoro madaxweyne Farmaajo ogolaan kara in laga wada hadlo dhibaatadii dhacday 19 September waa 19 February weerarkii musharaxiinta iyo in mandatekiisa laga hadlo ma isleedahay uu ogolaan kara إذا ورت وعلي من مقام كبير ونين شو عرفتي waxaad ogtahay madaxweynaha Korea Xasan Sheekh doorasho qabtay Shariif wuxuu qabtay doorasho ayadan cidina hadda ma aragtay hal hadal guriga ku qabteen cid ku faragelin marka su'aasha madaxweyne Farmaajo kor saaran ayaa waxay tahay ma question-ka la dul saaraya waxay tahay war adiga madaxweynaha Korea doorasho qabtay cid soo faragelisay lama arko maxaa la odaynimo muujiye adiga maxaa odaynimada ku diidan waxa kale oo ka sii horeeyay Shariif doorasho qabtay adiga maxaa ku diidan marka waxa moodaa asaga wadada ku dhamaanaysa macnaha daliya diiday iyo xamidooda diiday iyo qolo kale ay haysatay waxaas laga yeelay maayo marka wuxuu ku qasbanaan doonaa
hadduu isgaran waayo in la garansiiyo oo la yidhaahdo dhibku adiga taasaana imaan doontaa laakiin inuu isgartaa u fiican asaga saasa sharaf u ah inuu maanta tanasulo oo yidhaahdo haye sidaasaa garateen waan yeelay oo dalka maanta magac uga tago oo doorasho ogolaado oo uu meeshuu ku dhegan yahay ka foqo hadduu ka fogo diido waa laga fujinaya marnaba horta farmaajo sida uu rabo macnaha cid ka yeelaysaa ma jirto marka dad badan waxay qabaan inaanay madaxweyne farmaajo keligii caqabad ku ahayn doorashada waxyaabo badan oo madaxweynuhu xuquuq u lahaa sharaf u lahaa in ay hoos u dhigayaan ka hor imaanayaan maamulada qaar gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland waa tii adogeeda warqad 24 saac ka soo daba saarayaan marka soo ma oran karno laftirkoodu door weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka ee dhinaca siyaasadda lama oran karo waxa jira sadar la isla akhrinayo jira moogtaa markii oo su'aashaasi markay timaado jawaabteedu waxay noqonaysaa madaxdii ka horeysay wadada ay mareen maxay ahayd ana sawirka laga qaadanayo waxa rabaa aan lagu jimeeyo lahayn laba gooyaa la yiraahdo moogtaa marka madaxweynaha hadii la yiraahdo sharaftiisii iyo karaamadiisii lagu haystaa asaga tanazul sameeyay nimankaana ku dhigan hadii kii ka horeeyay ku dhiganayay waana sameeyay wuu samray waxa ka soo saaray asaga inuu samraa rabaa oo maanta xaquuqda uu leeyahay uu ka tago oo danta Soomaaliya u tanazulo laakiin asaga haduu rabo madaxweynuhu in loo tanazulo hadii cid ka yeelaysa male asaga moogtaa dalkii madaxda madaxweyne ka macnaha samirka la sheegayana macnaheedu waxa weeyaan sidaas rabta ma ahane waa si aadan rabin oo aad markaasi adoo fiirinaya oo dhibka macnaha waxa weeyaan umada kale in adiga wax ku dhibaya aad yeesho madaxweynaha waxa laga rabaa marka wax uu dhibsanayo inuu danta Soomaaliyeed ugu samro sida madaxdii ka horeysay oo kale waxaan aaminsanahay madaxdii ka horeysay ama xataa sheekh ninkan haysta markaasi mid ka badan inuu soo qabsaday markuu madaxweynaha ahaa oo doorashada waday oo meelo badan markaasi wax weyn laga kiciyay oo iska samray waa su'aasha ugu dambayso dad badan waxay qabaan taladii Soomaali iyo masiirkeedii waxay ahayd villa Soomaaliya oo yaalo looga arinsado looga hadlo waa ka soo dhaqaaqday waa lagu heshiin waaye waxay hadda taalaa afisyooni airportkii Soomaaliya meel u dhow haddii lagu heshiin waayo waxa laga baqaabay inay arintu inta dhaafto maxaa kula talin lahayd madaxweynaha iyo madaxda kale la joogto diyan waa maasantahay warun waxa weyn villa Soomaaliya ma markaas waxa weeyaan state house-kii guriga looga talinayo taladii way ka soo guurtay maanta afisyooni joogta bariina sii durugto wadamo kale ama meelo kale la isla aadaa way dhici kartaa aniga marka waxaan ku talin lahaa madaxweynaha waxa la rabaa moogta role model macnaha in uu qof ku daydo ana waxa isleeyahay madaxdii ka horeysay ku daydo dibka asaga maanta lagu hayo saaxiibkii xasan oo ka horeeyay waa lagu hayay shariif waa lagu hayay macnaha nin macnaha mas'uula oo markaas waxa weeyaan madaxweynaha waliba dal Afrikaan oo burbursan jooga oo Soomaaliya anagu aynu naqaano oo markaas waxa weeyaan sida dalku u burburay sida markaas qabiilku dadka uu yahay sida awood marqsi uu jiro iyo sida marka nabadkiiska ama qaraabakiilku uu jiro waan ognahay marka waa fiicnaan lahayd asaga keligii ma aha waxa wax ku dhaceen ragii ka horeeyaba way la qabeenay inuu wadadaas maro oo ka tago magac waxaan jeclahay in madaxdii ka horeysay ay samreen asagana samirkii oo kale u soo jeedinaya haddii laakiin samri waayo asagoon samrin oo ku eebaysan ayuu kulli ka tagi doonaa marnaba ma dhici karto inuu asagu sidoo raba inta uu doorasho u qabsado dalkan oo madaxweyne kaga dhawado oo ku maamuli doono ma filayo taas aniga